socdaal kaagan aad ku timid Jubbaland gaar ahaan magaalada Kismaayo la tafaasiil laga sii muxuu ku saabsan bismillaahir rahmaanir rahiim socdaalkayga wuxuu ahaa socdaal kamid ah qayb ka ah socdaalo badan aan ku tagi doono dawlad goboleedyada oo aan wada tashi iyo aan lahaanayno iyo ka warqab iyo inaan kala xog qaadano iyo inaan ogaado xaaladooda iyo sida tahay iyo sidaan wada shaqeyn karno iyo culeysada haysta iyo sidaan uga caawin karno marka runtii socdaalkan waa socdaalkii ugu horeeyay oo aan doonayo inaan ku tago qaybo badan oo kala duwan dalka dawlad goboleedyada meelaha kale marka ku qorshaysan in dhawaanahan aad tagtay hadii alla yiraahdo waxa ay qorshaysan inaan tago Puntland waxa ay qorshaysan inaan tago Galmudug waxa ay qorshaysan inaan tago Hirshabeelle insha Allah waana ku noqon doonaa haduu Ilaahay yiraahdo toddobaadkan madaxweyne waxa magaalada Muqdisho ku xusteen boqolkii maalmood ee ugu horeeyay xukunkaaga waxyaabaha idin qabsamay markaad miisaanto ma yihiin wixii aad filaysay xaqiiqdii dawladdaani horta runtii hadda xukuumaddan waxay jirtaa 2 bilood waa dhab aniga waa dhamaaday maaragtay boqolkii maalmood waa dhamaaday laakiin dawladda waxaan oran lahaa xukuumaddu iyadu waa 2 bilood bay jirtaa runtii waxa noo qabsoomay waxaan oran karaa wax la taaban karo weeye laakiin 2 bilood waa iska yar tahay laakiin bilawga waxa ummadda u muuqda oo aan rabnaa inaan ummadda u muujino inaan jidkan ku socono uu yahay jid wanaagsan oo geed qaad leh oo aan doonayno inaan amnigii ku soo celino ummaddiina rajo ku galino waana noo bilaabatay waxaan rajaynaynaa in aan wax badan qabanno bilaha iyo sanadaha soo socda haduu Ilaahay yiraahdo mudane madaxweyne ballanqaadyo fara badan oo dhinaca ammaanka baad samaysay oo qaarkood dhowr bilood yihiin qaarkood ilaa 2 sanadood ay yihiin kalsoonida sidaas maxaa kugu dhaliyay runtii annaga visionkeena ama aragtideena fog waa qoran tahay waana sheegnay waana kugu celinayaa hadda waxa ugu horeeya horta inaan ummadda waxaan ka ballan qaadnay dawlad wanaag macnaheedu waxay tahay in dawladda dhexdeeda ay wada shaqayso prime ministerka madaxweynaha ugu horeeyo baarlamaanka iyo xukuumadda iyo dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada kadibna dawladda Soomaaliyeed iyo caalamka maxaan ku yiraahdaa hawshaasi waxa weeye waa bilow waxaan arkaa in ay rajadu fiican tahay maxaa yeelay shacabka Soomaaliyeed waxay hadda u diyaarsan yihiin inay dawladda la shaqeeyaan taasoo ku timid runtii bisel ka heleen 27 sano ee Soomaaliya xoogaa ay ku soo jirtay duruufiyaha adkaa annaguna aan ballan qaadnay inaan ummadda si daacad ah oo wanaagsan ugu shaqeyn doono waana ka dhabeynaa haduu Ilaahay yiraahdo سؤال كلام مدن مدحوينان جعلينا كويديا waxa weeye taamaanka oo sanadadii aynu ka soo gudubnay looran karo duruuftu waxay taagan tahay sidii ay ahayd ururka al-shabaab markay timaado maxaad isleedahay waa laga qaban karaa al-shabaab mar walba waxay ka faa'iideystaan qaybsanaanshaha dawladda dhexdeeda iyo khilaafka dawladda dhexdeeda ah iyo dawladda iyo maamul goboleedyada runtii intii al-shabaab ay soo jirtay ama xoogeysanaysay waxay ku xoogsanaysay markii khilaaf u yimaado dawladda dhexdeeda iyaguna waa xoogsanayeen maxay leeyahay dhexdooda khilaaf ma laha waa dhismayeen marka waxa ugu horeeyaan sameeyeen waxay tahay inaan dawladda ka yareeno ama aan ka tirtirno wax la yiraahdo khilaaf haddii ay jirto wax kala aragti doonaansho waxa in lagu xaliyo dawladda dhexdeeda laakiin waxaan ku rajo weynahay inaba ha yaraatee wax dhibaato ah in dawladda dhexdeeda ka dhaximaan annagoo ka faa'iideysanayna marxaladii la soo maray iyo wixii naga horeeyay tan labaad waa inaan dhisno ciidanka qaranka inaan dhisno ciidanka inaan isku dhafno training iyo tababar siino qalabkii u baahan yihiin aan siino waxa ugu muhiimsan oo aan mar walba ka hadalnaa mushaharaadkooda inaan siino iyo noloshooda aan ogaano ciidamada si niyadoodii ay kor ugu kacdo waxa intaas weheliya oo kale inaan isku xirno shacabka iyo ciidamada qalabka sida inaan isku xirno oo ay ciidamadu dareemaan inay u dagaalayaan ama ay difaacayaan dalkooda iyagoo garab ka haysta shacabkooda mudane madaxweyne dad fara badan oo Soomaaliya ama Soomaalida badankeedu baan idhaahdee aad bay u soo dhaweeyeen markii madaxweynaha lagu doortay ra'iisul wasaaraha magacawday laakiin sidaan filayo inaad ka warhayso waxa xoogaa saluuga laga muujiyay golaha wasaaradda qaar kamid ah
dareen intee lag baad arrintan ka qabtaa waxaan aaminsanahay sidaad sheegtay ra'iisul wasaaraha waa nin wanaagsan oo dee hawshiisa ka adag golaha wasiiraduna waxay yihiin dad wanaagsan iyaga naftigooda waa laga yaabi karaa in dacayad laga faafiyey waxaa la yidhi been fakata run ma gaarto laakiin markaad shakhsi u fiiriso golaha wasiirada dadka aan ku soo darnay kulli waa dad technocrat ah oo nin walba shaqada aan u xil saarnay intooda badan khibraddii iyo aqoontii leh taasna waxaad ka arkaysaa hadda siday ula jaan qaadeen siyaasadda dawladda ama siyaasadda anugu aan keenay oo visionkayga ah iyo waxyaabaha ay qabteen waxaan ku kalsoonahay ama aan ku hanweynahay inay shaqo fiican oo la taaban karo ay u qabtaan ummaddana ay maaragtay hankay u qabaan ay soo dhawaato hadduu ilaah yiraahdo kadib shirkii caalamiga ah ee London ee Soomaaliya ku saabsanaa ballanqaadyo fara badan baa beesha caalamka madaxweyne ay bixiyeen markan ma kula tahay inay kaga dhawaynayaan waa ka dhawaynayaan markaan san aaminsanahay maxaa yeelay annagu waxaan caddeennay annagoo ka faa'iidaysanayna shirarkii hore loo qabtay oo dee tii koowaad London conference-kii koowaad iyo kii labaadba inaba ha yaraatee wax miraa uusan dhalin kan waxaan u sheegnay haddii dhaqaale loo aruurinayo Soomaaliya dhaqaalahaas annagu inaan ku leenahay door aan ku leenahay haddana waad arkaysaano European Unionka inay nagu soo wareejiyeen lacagahay ummadda Soomaaliya u hayeen ama magaca Soomaaliya ku aruuriyeen annagu inaan leenahay awooddii bixinteedii awooddii cidda aan siinayno iyo inaan siday u kala muhiimsan tahay projectska ama mashruucyada ama programyada annagu aan keensanayno waxay og yihiin dawladahan Europeanka ah haddaysan na aaminin oo aysan ugu kalsoonaan inaba ha yarataan tallaabo la qaadin laakiin mudane madaxweyne ma kula tahay aaminaadaasi beesha caalamku inay si hawl yar ku imanayso marka la eego waxyaabihii Soomaaliya soo maray dawladihii kala dambeeyay waa xaqiiqa waana laga aamin baxay waxyaabaha annaga noogu horeeya oo aan caalamka u sheegnay ummadda Soomaaliya aan u sheegnay aan qabanayna inay tahay la dagaalanka musuqmaasuqa adduunka meel kasta musuqmaasuq ka jira dal aan musuqmaasuq lahayn ma laha saasay tahayna waa la aaminaa marka hadda annagu qayb ka mid ah conditionada aan ku tagnay London conference ama la macaamilkan European Union waxa koow ka ah na aamina waxaan nahay dawlad hufan dawlad nadiif ah taageeradii shacabkiina haysata marka waxaan rajeynayaa insha Allah sidii hadda u bilaabatay inayna aaminaan annaguna aaminaadaas ina aamineen aan muujino inaan nahay dad wanaagsan oo hufan mudane madaxweyne khibradaadii hore ee dhinaca siyaasadda ama hogaamintaan ilaahdee waxay ahayd muddadii koobnayd ee aad ra'iisul wasaaraha ahayd imika inkastoo balqaadyo fara badan dadka Soomaalida aad u samaysay muddada kooban ee aad xilka haysay ka warba hadda dareenkaagu sidii ma ka culustay sidii hore markii balqaadyada aad samaynaysay runtii ballanqaadyadu inta badan waxay ku beesgaraysan yihiin anigu aan qaaday baahida dadka ilaahay rajada nagama qaado ummadda inaan rajo gelino annagana aan is aaminno inaan hawsha qaban karno khasbiyan maaha boqolkiiba boqol wixii aan ballan qaadin inaan samayn doonno laakiin waxaan rajaynaynaa inaan soo dhaweyno maxaa yeelay waxaan la imaanay qorshahaasna waxaa ku xiga shaqo iyo runtii daacadnimo intaba runtii dadka hadda anigu aan magacaabay ugu horeeyay prime ministerku ama ra'iisul wasaaruhu waxaan aaminsanahay inuu ka soo bixi doono hawshaas mudane madaxweyne hadda waxaad ku sugantahay magaalada Kismaayo maamul goboleedka Jubbaland baad soo booqatay markaad eegto wada shaqaynta dawladda federaalka inkastoo muddo kooban oo aad xilka haysay siday kula tahay waxaan ku sheegayaa shacab weynaha Soomaaliyeed iyo dadka na dhageysanayaan u sheegayaa maamul goboleedyadu runtii waxaa ka go'an inay dawladda federaalka la shaqeeyaan annagana waxaa naga go'an inaan la shaqeyno maamul goboleed dawlad goboleedyada markaan wada shaqeyno waxaan aaminsanahay waxana laga filayo inaan wax badan ka qaban karno ama meeshaan rabno aan gaari karno maxaa yeelay waxa weeye waxa dalkan soo gaarsiin meesha uu taagan yahay wada shaqeyn la'aan dawladda dhexdeeda ah
waxaan fahamsannahay waxaan u shaqeynaa inay yihiin shacabka iyo ummadda Soomaaliyeed inaan u shaqeyno annagu inaan nahay adeegayaal annagu isuma shaqeyno waxaan joogeynana waa muddo kooban intaas yar aan joogno waxaan ku ballanay inaan si daacad ah oo wanaagsan